وعيدا يا لمنتا فرحدي عويس لمنتا ليس ودعفيه يا بنتا أنكو عافي ما نمنتا وعيدا عيدا منتا هلو عيار منتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal ku soo dhawaada maqal raadiyo alaaba hawada aan soo galno maalin walba oo sabti ah dhammaantiinba waxaan idin wada leenahay ciid mubaarak haddaanu nahay shaqaalaha ka howlgala maqal raadiyo waxaa si toosa ugu jira oo stuudiyaha jooga saaxiibkay Jamaal Axmed anigoo mahada oo guriga ka soo gelaya ayaan waxaan idin wada leenahay aniga iyo shaqaalaha kale sida Xalwo Cali iyo Faysal Bah iyo Jamaal oo toos ugu jira ciid mubaarak dad badan baan soomin maanta Norway iyo Europe laakiin wadankii waa laga soomay iyo Canada iyo meelaha qaar marka hore aan ku soo dhaweeyay saaxiibka Jamaal Jamaal ku soo dhawow inkastoo stuudiyaha joogtida adiga ahayd inaad soo dhaweyso laakiin soo dhawow Jamaal mahado aad baan u dhawahay aad baan u leeyahay asxaabta raadiyo maqal iyo dhammaan daawadayaasha raadiyo maqal ciid mubaarak ciid wacan oo wanaagsan mahado ما شاء الله جماله maanta wadanka Norway lama ciidin oo barita la ciidaya Europe oo dhan inkastoo Canada iyo Soomaaliya laga ciiday bal sababta aad isleedahay Norway markii ugu horeyso Soomaalidu ay isla garatay inkastoo dadka qaar ciidan ma jiraan dad ciiday Soomaalida ay wadanka Norway mahado ma badan laakiin dad badan oo ciiday way jireen oo waayo la ciiday ma garanaysaa way dad badan oo galaftigooda ajnabi ayaa ciiday laakiin mahado kulli waxay xalay noqotay waxoogay dadku waxay galeen jahwareer miyaa la soomayo mise lama soomayo waayo dadku inta badan maad waxay ku xidhayeen wadankii iyadoo marka la isku diyaariyay in la soomo ayaa waxa soo baxday waqti dambe in la yiraahdo bishii waa la arkay hal ciido marka taasi waxay keentay marka jahwareer laakiin markii dambe waxa hadashay culimada Soomaaliyeed wadanka Norway sida masaajka Tawfiiq marka ayaga dadku waxay u sheegeen in dhammaan ururada islaamka ama noqoto ururka weyn ee Norway la yiraahdo Islamic Roadka iyo kuwa intooda badan Europe inay go'aansadeen in maanta xadda la ciido markaan wataan raacno marka dadkii Soomaaliyeed inta badan waxay qaateen taladii ka timiday culimada Soomaaliyeed ku dhaqan wadanka Norway marka maanta dadku intooda badan maada way Soomaaliyeed wax ciidi kama dhicin wadamada Europe intooda badan iyo siiba wadanka Norway ما شاء الله جماله وبرنامجكeenni maxaa cusub anagoo yara geli doonana hadday noqoto ciidahan ما شاء الله waa maalin sabti ah بري واحد أنو بريتان نسوم عيدينا حدو إلى هاي هذا ما أنت ساعدنا نوجد ما يمر ولا فريا جمال ما شاء الله سيدات السلاد هاي مركب برشة الصوماليات بريتو إنه عيد دونان يا برشة المسلمين تأكل قوانين كنوري واي وحن لصع إني إن سنة كان مركب وجوه الرئيسي ودن كنوري راديو يدو أمام بدن وعي قليم بدن أي ودان أو ولي بودن كنوري قارهان channel كنوري جي راديها أنا أركوجا ووضو in uu ka sheekeeyo Ramadaanka faa'iidada gaajadu dheer leedahay barnaamijyadaas oo dhan uu ka sheekeeyo wasiirkooda hadday noqoto dhaqankuna uu yahay nin muslim ah oo Pakistani Abid Raja ma isleedahay marka waxba isbedelay wadanka Norway inay wax badan ka hadlaan Ramadaanka ka hadlaan iyo waliba ciidda Brita mahado waa soo sheegto wadanka Norway maadaama ay degan yihiin dad lagu qiyaasay 200 oo kun oo muslimiin wax ku yeeshay markaas raadin dadku inta badan way dareemaan marka waxaad ogaatay markii la bisha Ramadaan la galo kala ma garanaysa waxa uu hambaliyay ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan wadanka Norway ra'iisul wasaaraha wadanka siba dadka degan magaalada Oslo wuxuu hambaliyay maayarka magaalada Oslo marka waa laga dareemayay suuqyada soo dadka magaalada inay bisha Ramadaan lagu jiro oo qof kasta oo Norway jooga inta badan uu ogyahay dadka muslimiintu intooda badan inay sooman yihiin واحد تا waxa lagu soo qoray meelaha waa sida ay ogtay magarasa website-ada ama TV-yada sidee dadku u ciidi doonaan maxay sameyn doonaan marka ma hado aad iyo aad baa looga dareemaa bariyahan dambe muslimiinta ku dhaqan wadanka Norway saameyn ballaaran way ku leeyihiin mujtamaca Norwegian-ka oo dhinaca positive-ka ما شاء الله markaad eegto radio maqal oo de salaam badan mar walba dira anagu shaqaalaheena haday noqoto Xalwo Cali aniga mahada adiga Jamaala Faysal Yare Fardoos oo ka soo gali jirtay Winnipeg Canada British dadkaas oo dhan maxaad isleedahay bulshada waxbay iyo sidii radio maqal uu sanadkan uga qayb qaatay haday noqon lahayd COVID-19 iyo guud ahaanba bulshada markaad eegto arrimaha bulshada anagu xoog saarnaa sidee isleedahay radio qayb libax buu ka qaatay arrimaha ma hado sida la wada og yahay markii uu xanuunkani bilaabmay waxa dhacday ma garanaysaa in si fiican loo fahmin waayo xanuunkani waxa xanuun ka cusub ummadda dhammaanteedba kadib markii dambe waxa la ogaaday dad badan oo ajnabiba ama ku dhaqan wadanka Norway ama dhawaan yimidba inay luqadda Norwegian si fiican fahmaynin ama inta badan ayna daawaninba kanaalada ay ku hadlaan luqadda Norwegian-ka
oo guryahooda ay ku haystaan kanaalo ma garanaysaa ku hadla luuqadooda waa ma waddanka ka yimaadeen taasi marka baaritaano badan la sameeyey waxaa loo baahday in dadka ku dhaqan waddanka Norway intii macquulaba in loogu turjumo awaamirta ka imanaysa wasaaradda caafimaadka afkooda hooyo marka raadiyo maqal waxa uu noqday kanaalkii ma garanaysaa qayb libaxla ka qaatay in ummadda Soomaaliyeed afkooda hooyo ugu gudbiyo awaamirta ka imanaysa wasaaradda caafimaadka ama amarada ay soo saarayso dowladda waddanka Norway marka waxaa la is odhan karaa ama sida la dareemay raadiyo maqal iyo asxaabta dhammaan ka shaqaysa raadiyo maqal iyo dadka taageera raadiyo maqalba waxay qabteen shaqo aad iyo aad u wanaagsan oo aan marnaba aan la hilmaami karin oo aan dhammaantoodba leenahay aad iyo aad baad mahadsantiin shaqadaad nala qabateen haddaanu nahay shaqaalaha joogtada raadiyo maqal oo caawana leenahay maanta mar labaad iyo saacad ciid wacano waa ciid mubaarak aad baad u mahadsantiin maado jamaalow yaa halkan ka salaamaysaa bal saaxiibada bulshada reerkii iyo bal jaaniskaas adoo ka faa'iidaysanaya maado haddaan cid salaama saacad waa badan tahay marka dhammaan waxaan leeyahay saxaabteenna ku leenahay adduunka oo dhan hadday noqoto waddankeennii hadday noqoto Canada Maraykan Yurub Asia meel kasta waxaan leenahay aad iyo aad baad u salaamantiin laakiin qofka kaliya doonaya inaan xuso maado waxa weeye inaan dhahdo halkan waxaan si gaar ah u salaamayaa Mahad Cabdulle oo leeyahay aad iyo aad baad mahadsantahay aad iyo aad sidoo kale safar badan baan wada galnay waqti badan baan soo wada shaqaynay radiogana waxaad ogtahay Jamaalow in uu imika jirsaday 11 sannadood oo dad isma oranaynba intaasoo sannadood bay joogayaan markaa waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliyeed in dulqaadku iyo ixtiraamku iyo wanaagga iyo kala dambeyntuba ay tahay waxa ugu wanaagsan halka ku soo gaarnay aniguna halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda qaaliga meel walba ay joogto maanta waa maalin farxada waa berrina waa axad waa ciid maantana waa la ciiday labadaba marka runtii Jamaalow anigu waxaan aad u faraxsanahay inaan si toos ah habeen walba wada hadalno ilaahay noo saamaxay bulshadan warbaahintan cusub ee imika aad arkaysan social mediahan cusub haddaad wax badan uga faa'iidaysato bal maxaan su-aashan ku weydiin waxay tahay warbaahintu waa laba af bal sidee baad labada af loo kala isticmaali karaa qaybta wanaagsan iyo qaybta xunba ما هذا واسع شكله ميديا ده ما شوفش الميديا وحنا لا بقى في مكان قاعدات في فيسبوك وكذا واحد كسر ده وحيابا أنا معقول أنا كسر ما أفلق هذا معي أما ده أنت سوفر إسلام وحلي واحد هناك واحد ليا وما قرأت عن حشونين عن ما قرأت عيد دورين عن مقعد إلى شنين والمدة الصومالية كده شان إلى لين عن دمر كحشونين ريح حشونين مدح عن دورين علماء عن دورين بعد كسر واحد هناك واحد ليا لكن تام هذا واحد بربر سعوته أنت بدن كله الرئيسة تك أنت السيدة في عنو استعماشا tusaale kale haddii aan soo qaato hal tusaale bishii Ramadaan waxaa dhacday in masaajid ku yaalla waddanka Canada uu soo diyaariyay muxaadaro culimo badan ay ka soo galeen Kenya Soomaaliya Hargeysa Burco Djibouti meel walba oo dadku aad moodo inay wada joogaan oo culimadaasi markaa si fiican looga faa'iidaystay marka social media waxaa leeyahay ama haddii dhinaca wanaagga haddii loo isticmaalo waxyaabo badan ayaa looga faa'iidaysan karaa hadday noqoto aqoontii isgaadhsiintii oo dhinac walba waxaana ka mid ah magaranaysaa wuxuu isticmaali jiray magaranaysaa haddaan dib uga soo noqono Norway maqal raadiyo ah inaanu habeen walba ama wiilkii soo deyn jirnay barnaamijyo soo koobnay wixii dhacay wiilka maxaa cusub maxaa dhacay marka ma hado waxaan leenahay media social media wuxuu noqday magaranaysaa wixii hadda la isticmaalayay ee ummadda Soomaaliyeed ama ummadda adduunka wax loogu sheegay marka marna laga maarmo marka ma hado waxa isla hadii maanta guriga mahad uu ka tagay internetku waxaan maleynayaa in xaalad kala geli doono sida hadda hay aad iyo aad Jamaalow maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay maanta oo ciida inaan soo gabagabayn doono oo oran doono ciid mubaarak dhamaantiin markaad eegto bulshada Soomaaliyeed haday iskuulka iyo arrimahan imika iskuulaadku waxayba u noqotayba in imika fasax la qaato iskuulka oo dhan maadaama ay meelaha qaar ay muslimiintu u badan yihiin iskuulkaaga waxa u badan baan u maleynayaa muslimiinta fasax baa la qaatay maca isniintan maqlayo warkaysi ما هذا واحد دي واساش كيسول كان كشقي مسلمين أو بدن أو واحد لا ياب نقطي إنما قاعد يقول تعالى ما شاء الله حد بيشرب رمضان واحد وحكي بسنة سامج وكان ساعات كل دريم مساعدتك مسلمين تيجي مدرسة السامين بدن كل يوم ودك النرويج ما هذا حتى وحنا نقول نقطة دي سوشيال ميديا واحد يلا نقول هذا حل يقول شيء مدرسة كورونا فيروس تصالح كلام أنا هي وسارد واحد برشلونة كله أدي أدبنا عاوي أنا أقول لك إسكت شو أنا أرضي وحلول دقي وحول بسيط عادي جاي السعودين وحنا ما ضاع سوستا laba bilood ayaa waxaan joogay guriga aan halka magaraysa ardayda casharka uga dhigay marka wax aad iyo aad loogu farxay noqotay sidaan dareemaynayna waxa ay noqon doontaa mustaqbalka in nidaamka waxbarashada waddanka Norway wax badan bedeli doono corona dhacay iyo in ay yimaadaan barnaamijyo cusub oo sahlaya in ardaydu guriga iska jooga waalidiintu guriga iska jooga macallimiintu guriga iska jooga inay wada shaqeeyaan shaqada sidii caadiga u socoto maado marka waxa isla waa horumar la gaaray wax badan baa laga bartay xanuunka COVID-19 ka dhinaca positive-ka
jamaalow wax badan maanta hadli mayno waxaan doonayaa bal inaan halkan bulshada hadalkaaga u dambeeya aad salaanto kadibna waxaad ku soo kordhinayso isleenahay maqal raadiyo bulshada waxaa sula wadaagi doonaa maanta intaasaan kusoo gabagabaynaa jamaal soo dhawow sidaan mar labaad leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee Norway joogta ee berri ciidi doonta waxaan leenahay ciid wacan oo wanaagsan dhammaantiin baa wuxuu leeyahay raadiyo maqal aad baad u mahadsantihiin saad noo greefsaagteen waqtigii aad ka lagu jir coronavirus marka waxaan leenahay ciid wacan oo wanaagsan haddana maada waxyaabaan qaban doona kuu sheegay waxa weeye kulley waxaan lagu soo dhow waqtigii fasaxa ahaa oo iskuulada la fasaxay fasaxana wax badan inta badan lama qabto laakiin kulley waxaan sii wadi doonaa wacyigelintii ahayd ma garanaysaa ka imanaysa wasaaradda caafimaadka maadaama xanuunka weliba waddanka ka dhammaanin maadaama xanuunkii jiro in dadku ay kala fogaadaan tusaaloo kale waxaan aad iyo aad ula dardaarmayaa berri oo kale maadaama inta maalin ciida inaan dadku soo buuqanin ee intii loogu talagalaa la dhaafin salaada ciidan haddii la tukanayo magaraysaa la kala fogaada hadday suuragal tahay haddii kalena qof walba uu gurigiisa ku ciido oo uu carruurtiisa la ciido gurigiisa iska jooga taasaan ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan waddanka Norway aan leeyahay ciiddii si fiican looga faa'iidaystay laakiin hal la ogaado weli inuu jiraan dhibaatadii xanuunka coronavirus oo awaamirtiiseeda loo qaato ما شاء الله وما العيدة أنا وجرجان كعيدة سي أنا أديك يو جرجا با يو أنيجا يو إيدك بيدي بدباديو إلهي با وحبت بادية لكن جرجان كعيدينا هل كانوا كعوينينا أديات بعد جبال وما سنتاي لما أنتي محمد بدلنا هذا إنه هاي بهذا بقى الراديو من الوضع عالم كجوكتان كحرنا ومقال الراديو عيد مبارك مهد جمال حلو علي فيصل بريتي وومن فردوس oo Canada iyo dhamaan inta dhageystayaasheena waxaan kaloo halkan u mahad celinayaa intii ka qayb qaadatay barnaamijyadii ka qayb qaadatay dhaqaatiirtii iyo waliba suugaanyahankii iyo dhaqaatiirtiiba iyaguna waan u mahad celinay Jamaal aad baad u mahadsan tahay adaa mudan mahad ciid wacan oo wanaagsan ciid wacan saaxiib khayr baan ku